walaalahayga maantay waxaan ku faraxsanahay badda Soomaaliya yaa balanti yaa maanta waxaan ku dhahay kuulalaya Soomaaliya kuul soo yeeto kuul waa tilaabada koowaad oo la qaaday waaye maasha Allah tilaabada koowaad la qaado waaye aad aan ugu faraxsanahay in badda Soomaaliya Kenya way imaaweysay meesha waxa ka cad markii badda ayada lahayn badda anaka iska leenahay qof walba way ogtahay adduunku wuu ogyahay laakiin Kenya boob ay wataan dad boobto wala aad ugu faraxsanahay waxa fiicnaa meeshaas inaan taagnaado booskaas maaragta wala bilaahi aad ugu faraxsanahay Soomaalida taagnayn oo hambalyeena Soomaali baa leh Soomaali baa leh yaa Soomaaliyay taageera iskarab istaaga cadawgan iska celiya soo wadankeena in la boobo badina la qaato Soomaali maxaa ka tihiin yaa dad isku afaatihiin dad isku diinatiin كان Soomaali baa leh hada ku soo duulna la ka qabtaan leeyahay badeena Soomaaliya ma sha Allah ilaahay dib u soo celiyay ayaa mahad iska leh soo waxaan aragnaa maxaa lahayd meeshii inuu Kenya way ka tanaasushay inay imaato marka dadkii hore u siiyana waxaan Soomaali kale Soomaaliya waxaan leeyahay dadkii hore u siiyay Soomaali baa leh band ninka jeebka wax ku ritana waxa waaye jeeba shilin ku ridato wuxuu ku taray malahan marka waxaan ilaahay asxaabay in aan taageerno badana Soomaaliya meel walba aan joogno assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maanta waxaan ka hadlaynaa taawadayaal soo dhawaada meel walba dunida ka joogtiin qalbi furan niyad saafiya halka naga taawanaysiin waayaan Taariikhsan TV maanta waxaan ka hadlaynaa badana Soomaaliya oo pop lagu wado qof walba horta badda oo Soomaaliya waa badeeda ayada iskale qof walba maanta Soomaaliya waxa looga baahan yahay heel ama karab inay siiso badda Soomaaliya badda Soomaaliya iskale meel walba joogto Soomaali gees ayay u dhaxaysaa badda Soomaaliya ma ahan beec sida gabadha noo sheegi doonto iyo wiilkan beec ma ahan sidaqana ma ahan oo qof sidaqa lagu siinayo waa hanti ka dhaxaysa Soomaali weyn meel bay dunida ka joogto badeena Soomaaliya maanta waxa loo baahan yahay Soomaali inay u istaagto ee ka qabato dadka ku soo duulay dawladdaas oo u baahan in ay qaadato dadka dawladdaas oo u baahan inay qaadato badaas Soomaali horta waxa waaye faraha inay isqabsadaan gacmaha isqabsadaan badeena Soomaaliya aan la boobin aniga waan macnaha ani ahaan maanta waxaan ka hadlayaa ra'yigayga waxa isoo fadhiisay YouTube inaan ka soo hadlano waxa waaye Soomaalinimada aad igu weyn waxaan ahay qof Soomaaliya am Soomaali ma ihi Ethiopian ma ihi Eritrea ma ihi wadan kale soo waxaan ahay Soomaali waxaan jeclahay Soomaaliya waa wadankayga hooyo dhibaato walba oo ka dhacdana ma aan ka seexdo waan jeclaalahay maalin uunaan arko Soomaaliya cado isku taagtay weligay ma arkin Soomaaliya nabada Soomaaliya oo dagaalka oogan baan indhaha ku kala qaaday waxaan jeclaalahay inaan arko maalin uun Soomaaliya oo nabadaysan Soomaaliya oo ay Soomaaliya insha Allah ilaahay xaqiisana wax kama ahan walaalaheen Soomaaliya waxa meel baa joogteen gacmaha isqabsada qabyaalad iska daaya waxa niila kala qofaayo waa qabyaalad dadkan ajnabiga oo badda hadda doonayaan waxay rabaan inay ku helaan qabiil iyo la yiraahdo qabiil hebel ayaa ka qaaday xukuumadda qabiil hebel ayaa dawladda badsaday marka waxaan ilaahay Soomaaliya gacmaha isqabsada qabiilka iska daaya oo hal meel ka soo wada jeesta saabadiina aan loo qaadan u qaadan tiriskiina badeena Soomaaliya waxaan leeyahay guul inay ku soo dhamaato ilaahay ka rajeynaa in Soomaaliya loo soo go'aamiyo maxkamadda sorry iga raali noqdo magaceedii waan qaltay soo ma qaltama waa ilaahay bini'aadan aan ahay maxkamadda adduunka oo dacwadeeda loo fadhiyo waxaan rajeynayaa inay ku soo dhamaato guul iyo gobonimo Soomaaliya badeeda u soo noqoto meel baa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay sidaas nabadiina fadlan subscribe isaar waana mahadsantahay meel baa dunida ka joogtiin waa in ayna la kala safanin dawladaha shisheeye mid danteena wada iyo mid diidanba balse
waa inaan la wada safarnaa dawladdeena Soomaaliya taasina waa qiimaha ugu adag ee aynu ku iibsan karno jiritaankeena iyo qarannimadeena Soomaaliya waxaan nahay Soomaaliya waxaan leenahay Soomaaliya ma nihin Ethiopia mana nihin Kenya Qatar Imaaraat warkeeda badaa midab iyo muuq midna ma wadaagno adduunka kaliya waxaynu wadaagnaa waa nabadda iyo wada noolaanshaha islaamkana waxaan wadaagnaa diinta taas waa in ogaada qof kasta Soomaaliyeed marka laga hadlaayo qarannimada iyo jiritaanka ummadan ama geeskan Afrika gaar ahaan Soomaaliya waa in ogaada qof kasta Soomaaliya adduunka waxaynu la wadaagno iyo anaga waxaan nahay baddeena Soomaaliya iyo hantideena mugurtada ah ee dalkeena iyo dadkeena ay leeyihiin kuma kala aragtida wanaan karno haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa in aan wada garab istaagnaa dawladnimadeena iyo qarannimadeena taas oo u heelin doonta hanti kasta oo markaas aynu haysano ama xuduud ha ahaato ama xoog ha ahaato ama calan ha ahaato ama ciid ha ahaato waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed yeynaan ku kala mashquulin aragtiyaha ku hirdamaya waddankeena Soomaaliya balse aynu ku wada mashquulno ilaashiga dalkeena iyo dadkeena taasina waa sharafteena iyo jiritaankeena dawladnimadeena iyo disitaankeeda ma ku kala hadheeno cadowguna nama kala qaybin doono waxaan ku midaysanahay jiritaanka dalkeena dawladdeennana waan garab taaganahay maxkamadda cadaaladda adduunka mana maqlaysaa baddayada ma ahan beec mana ahan sadaqo aan doonayno in aan siino dariskeena Kenya damaca Kenya waa dulmi cad dadkayga Soomaaliyeedna way diideen fadlan u heliya cadaaladda tani waa baddeena iyo hantideena maguurtada ah Our sea is neither for sale nor for charity that we wanted to give to our neighborhood Kenya. Kenya's access is a clear operation and our people have renounced it. Please support justice and fairness. This is our sea and it is our real estate. بحرنا ليست للبيع وليست للصدقة لا نريد أن نقدمها لجارتنا كينيا جشع كينيا ظلم واضح وشعبنا قد رفضه لذا يرجى دعم العدالة هذا بحرنا وعقارنا